agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo safar shaqo ku yimi magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu booqasho ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Burco oo ay ka socoto hawl ballaaran oo dib loogu hagaajinayo qaybaha kala duwan ee cisbitaalku ka kooban yahay iyo kuwa kor loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee cisbitaalku siiyo bulshada reer Togdheer kormeerkani agaasimaha oo ujeedadiisu daaranayd kuurgelida xaaladda caafimaad ee gobolka iyo soo kormeerida mashaariicda dhinaca caafimaadka ee ka socota cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa u deeqda weyn ku wareejiyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo kan cisbitaalka ee magaalada Burco kormeerkani kadibna waxa ay mas'uuliyiinta caafimaadka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadku ay kulan warbaahineed ku qabteen gudaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay siduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdi Ibrahim Suudi waxaana kamid ah hadaladoodii ugu horreyn halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye iyo waftiga kale la socda ee kamid yihiin agaasimayaasha wasaaradda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka runtii agaasima haddaan warbixin ka siiyo xaaladda caafimaad ee xaaladda cisbitaalka guud ee magaalada Burco muddooyinkii u dambeeyay agaasima waxa ka jiray magaalada Burco xanuun ay reer Burco u bixiyeen kuduudiye marka haddaan xanuunka warbixin ka siiyo xanuunkaasi uu soo yaraanayay muddo 15 cisho u dambeysay cisbitaalkuna wuxuu siinayay bulshada reer Burco iyo reer Togdheerba adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin dhammaan waanu siinay wasiirka agaasimaha guud intaba waxaan hambalyayn leenahay naga warhayaan waxaan kala aad iyo aad u hambalaynayaa badha saabka iyo maayirku soo shaqeeyeen maayirku wax alay wuxuu qalafaysan ugu wareejiyay haday isku rogo tahay haday cagafyo tahay annaka guriyna qashka walina waxa jadwalku noo yaala waan sii wadaynaa way roobada daaya roobka daana Burco biyo kama biyo fadhiisi baa jira reer Burco waxa la Togdheer waxa leeyahay kanaacada hala dagaalamo hanuunkan kanaacada fidinayee aynu nadaafadda nin kastaba miyiga kuma dhaca hanuun karo wuxuu ku dhacaa meesha cidhiidhiga kanaacadan keenaysa waxa weeyaan waxa ku nooshahay meesha qashinka run ahaantii maanta waxaanu joognaa gobolka Togdheer waxaanu joognaa gaar ahaan magaalada Burco waxaanu sii joognaa cisbitaalkii magaalada Burco ama cisbitaalkii weynaa ee magaalada Burco halkaas oo aanu nimid safar shaqo oo ujeedadiisu ay ahayd bal inaanu ka war helo xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan xaaladda degmada iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu jiray xanuuno ilaa ugu yaraan 3 jeerna ay wasaaradda dhexe timid marba heer timidba maanta waxaan agaasima guud ahaan u yimid bal inaan soo eego xaaladii iyo hawlihii socday halka ay marayaan waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan mahad ballaaran u celiyo guud ahaan gobolka gaar ahaan badha saabka iyo maayirka iyo hay'adaha kale ee dawladda iyo hay'adaha private-kaaba sidii ay uga qayb qaateen hawlihii nadaafadda iyo la dagaalankii kanaacada sidii ay qayb uga qaateen aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa run ahaantii waa Maxamed Axmed Yuusuf telefishinka caalamka Universal magaalada Burco.